Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha iyo qaayaha ku soo dhawaada Higgs Technology anigana waxaan ahay Maxamed Xirsi maanta hadduu alle idmo cashirkeena waxa uu ku saabsan yahay oo aan ku sharxi doonaa sida loo sameeyo infographic adigoo isticmaalaya Adobe Illustrator waxaan maanta sameyn doonaa design-kan hortiina ka muuqda aan rajaynayno in uu noqon doono mid idin anfaca waxyaabaad badanna aad ku sameysan kartaan sida uu hadda yahay iyo si ka duwanba. markale kusoo dhawaada Higgs Technology maanta hadduu alle idmo cashirkan aan qaadan doono waxa uu noqon doonaa sida infographic loogu sameeyo Adobe Illustrator waliba design-kan hadda ujeedaan ayaan sameyn doonaa hadduu raalli ka noqdo alle waxaan ka codsanayaa haddii aadan subscribe noo ahayn inaad taabatid buttonka subscribe-ka kadibna aad taabatid meesha gambaleelka si ay kugu fududaato in cashiradeena mar walba ay kusoo gaaraan. Okay, markaad rabtid inaad project ku fulisid Adobe Illustrator waa inaad tagtaa file kadibna aad dhahdaa new kadib waxaad dooranaysaa halkan meeshan ay ku qoran tahay width waxaad ka dhigaysaa 1270 halka height ay ku qoran tahay waxaad ka dhigaysaa 720 kadibna waxaad leedahay okay kadib daaqadan ayaa kusoo furmaysa nooca ay rabtaa ku ahaato adiga haddaad rabtid waxaad ka dhigi kartaa A4 size micnaha ma ahan in aad size-ka gooni ah ku samayn kartid laakiin size-ka rabtid ayaa ku samayn kartaa. halkan waxa ii yaala kalaro oo aniga aan sameystay oo meesha soo dhigtay qaybtan midigna waxa ii taala ayadana icons iconadan waxaan ka soo degsaday Google-ka then waxa sameynayaa halkan ayaa tagayaa rectangle-kan ayaa soo qaadanaya rectangle tool kadib halkan ayaa soo dhiganaya okay sidaas ayaa ka dhigaya kadib color siinaya colorkan sidee ku sii karaa waxaan ku sii karaa inaad dhahdo keyboard-kaaga I aad ka taabatid kadibna aad ku dhufatid ama halkan aad tagtid I drop aad soo qaadatid kadibna sidaas ku siisid. Okay inta markaad sameysid waxaad tagaysaa halkan waxaad dooranaysaa midkan ay ku qoran tahay rectangle tool kadib click ayaa ku siinaysaa halkan qaybta kor waxaad ka dhigaysaa 136 qaybta hoosena waxaad ka dhigaysaa 309 kadib sidan ayuu ku soo baxaya sidan markuu ku soo baxo halkan ayaa dhiganayaa sidan markuu ku soo baxo waxaa sameynayaa waxaan halkan ayaa tagayaa paint tool kadib waxaad dooranayaa midkaas ajurka ayaa dooranayaa meesha centerka ayaa tagayaa click ayaa ku siinayaa kadib markay sidaas dhibic noqoto ayaa waxaas falaarta qaybta kor ayaa taabanayaa amase waxaad tagayaa halkan direct selection tool ayaa soo dooranayaa kor ayaa u qaadaya aniga oo shift haya shiftida waxay iga caawinaysaa inaysan wax qalooc ku imaanin kadib waxa sameynaysaa halkan ayaa imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay rectangle tool qaybtan ayaa imaanaysaa halkaas markay sidaas noqoto geeska soo bilaabaysa ilaa geeska kale mid noocaas oo kale ayaa sameynaysaa kadib afsaxaysaa sidan markay noqoto highlight ayaa wada saaraysaa I drop ayaa taabanaysaa kadib color ayaa dooranaysaa aniga waxaa dooranayaa colorkan okay qaybtan hoose ayaa ku dhufanayaa halkan ayaa tagayaa meesha kalarada click ayaa ku siinayaa kadib qaybta ka madow qaybtii hore ayaa ka dooranayaa okay sidaas markay noqoto direct selection toolka ku noqonayaa qaybtan hoose ayaa select gareynayaa sidaas ayaa u select gareynayaa qaybtaas hoose kadib anoo shift haya ayaa falaarta geeska midig ayaa dhinacaas jag 2 ayaa u siinayaa ilaa iyo mid saddexaad hataa ku dari karaa then waxaa sameynayaa highlight ayaa wada saarayaa alt ayaa qabanayaa geeskan adoo muuska ayaa ku jiidaya anoo la simaya tii hore anigoo tii hore la simaya ayaa sidaas ka dhigaya okay markay sidaas kula simo in yar waxaa moodaa inay wax yar oo beena kala fog yihiin waa isla simayaa sidaas markaa iskula simo highlight ayaa midaan saarayaa I drop ayaa taabanaya colorka ayaa ka bedelanaya kadib mar kale qaybtan hoose ayaa ku dhufanayaa halkan ayaa tagaya meesha colorka laga bedelo kadibna colorka kadib ka culus ayaa dooranaya okay intaa markaa sameeyo maxaan sameynayaa qaybtan ayaa ku dhufanaya halkaas qayb kore kadib alt ayaa qabanaya waa jiidaya ilaa iyo
sidaas ay noqoto. Alta maxaa waayaan copy waay macnaheed. kadib eyedrop ayaa taabanayaa, kadib colorka ayaa bedelayaa. eyedrop muxiga adoo kilig ah ayaa eyedrop taabanaysa, kadib colorka ayaa dooranaysa. si fudud ayuu colorka kaaga bedelayaa. okay, kadib highlight ayaa labadii hore ayaa highlight wada saaraya. kadib waxaan leeyahay right click, kadib waxaan dooranayaa halkan meesha ku qoran transform, kadib waxaan leeyahay reflect, kadib copy, kadib waan soo qaadaya halkan ayaa keenaya ayagoo cabirkeeda siman. okay, sidaas markay noqoto midan ayaa select gareynaya anoo shift haya, labadooda isla select gareynaya. eyedrop ayaa taabanaya, colorka bedelaya. qaybta hoose ayaa tegaya, halkan ayaa haddana ku dhufanaya, colorka ayaa ka bedelaya. okay, tan ayaa markale highlight gareynaya, eyedrop ayaa taabanaya, colorka cagaarka ayaa dooranaya. okay, qaybtan hoose ayaa ku dhufanaya, halkan ayaa tegaya, double click ayaa ku siinaya, colorka cagaarka ayaa dooranaya. okay, kadib maxaa ii dhiman qaybtan, waxaa soo qaadanaya rectangle tool. qaybtan ayaa rabaa inaan color saaro. markuu gees ilaa geeskeeda ayaa soo saaraya, hoosna waa la ekeysiinaya. then waxaa sameynayaa eyedrop ayaa taabanaya, colorkeedoo kala siinaya. inta ayaa imaanaya, xoogaay ayaa color ka cusleynaya. okay, markaas waxaa sameynaya geeskan ayaa ku dhufanaya, sidaas ayaa u qabanaya. direction selection toolka isticmaalayo, direction selection toolkana isticmaalaya, gees ilaa gees ayaa qabanaya, sidaas ayaa u jiidaya anigoo shiftiga hayo. shiftiga maxay iga caawinaysaa inuusan qalloocanin. shift qabo, okay, intaas markaa sameeyo maxaa sameynaya, selection toolka caadiga soo qaadaya, highlight ayaa wada saaraya, kadib waa soo jiidaya, qaybtan ayaa keenaya. kadib waxaa sameynayaa control y ayaa leeyahay oo iga caawinaysa in waxyaabaad isdul saaran yihiin in kale. haddoo kale intaan waxyaabadaa isdul saaran waxaa iibiyaan midkan ayaa midkan dul saaran. so waxaa sameynayaa direction selection toolka soo qaadanaya, tanaa dooranaya ilaa iyo geeskeeda ayaa keenaya. hadda wax isdul saaran malahan, marka ayaa control 0 leeyahay, control y ayaa leeyahay. okay, markale ayaa highlight ku celinayaa, hoos ayaa aga dejinayaa tii hore. hoos markaas sidaas aga dejiyo, waxaa sameynayaa zoom ayaa leeyahay. qaybtana waxaa u sameynayaa calaamad, waxaa soo dooranaya paint tool, kadib sidaan oo kale ayaa u sameynaya. then waxaa dooranaya colorka u dhow, kadib waa ku dhufanayaa, midka si tiqsanaa sii dooranaya like this. mar kale ayaa haddana waxaa sameynayaa, waxaa soo qaadanaya paint tool, gees kale ayaa sidoo kale u sameynaya. kadib control 0 ayaa leeyahay, sidaas ayay noqonaysaa. okay, maxaa ii dhiman inaan sameeyo qoraalka iyo iconodii. iconadan ayaa soo wada qaadanaya, marka midkan koowaad meesha koowaada dhiganaya. okay, midkan labaad ayaa soo qaadanaya, waa la simaya. okay, intaas markaa sameeyo, halkan ayaa imaanaya design, qoraala texta soo qaadanaya, halkan waxaa ku qoraya graphic design oo kale, graphic design. kadib waxaa sameynaya graphic design ka zoom dheh, farta ayaa ka bedelaya. marka koowaad farta aniga uu jeclahay ayaa dooranaya, kadib bold ayaa ka dhigaya, kadib qaybta hoose ayaa hoos u dejinaya, kadib qaybta hoose waxaa ka dhigaya color regular. kadib waxaa sameynaya, waxaa dooranaya gees inay ka dhigaan, kadib colorka ayaa ka bedelaya, white ayaa ka dhigaya. kadibna waxaa sameynaya xariiq ayaa soo qaadanaya, halkan ayaa soo dhigaya xariiq waxaa sameynaya kor ayaa wax u qaadaya, color white waa siinaya. okay, xariiq waa ku dhufanaya, meeshan stroke ayaa tegaya, 0.5 ayaa ka dhigaya. okay, kadib qoraalkan graphical designka ayaa
halkan kasoo qaaday ilaa halkan waxaa soo qoraalka soo testa soo dooranaya boxka kadib waxaan ka dhigaya inay bilow kasoo bilaabato kadib waxaa qorayaa waxa ay graphical design waxaan bixinaa waxbaa qorayaa okay qoraalka samka u qorto waxaa sameynayaa centerka ayaa ka dhigayaa white-na waa ka dhigayaa colorka okay kadib baa fasaxaya then waxaa sameynayaa halkan hoose number ayaa u sameynayaa kanoo kale waxaa ka dhigayaa 1 kadib bold ayaa farta ka dhigayaa waana weyneynayaa 1 white-na waa ka dhigayaa colorka okay markaas maxaa sameynayaa waxaa highlight gareynayaa intaan anaa highlight gareynayaa control Z control F oo ah replace ayaan leeyahay past oo place ah waaye kadibna waxaa sameynayaa sidaas oo kale u jeediyaa anoo alt tahay ayaa soo jiiday intaa keenay kadibna control D ayaa leeyahay control D das maxay iga caawinaysaa anoo mataqaanaa socod badan sameynin oo code badan sameynin ayuu automatic u koobiyeynayaa kadib sidaana u design gareynayaa waa qurxinayaa wax yar waa isku toosinayaa kadib numberska ka bedelayaa magaca okay then control 0 de look qoraalka marka ayday ku jirtaa sida u bedelinaysid marka sidaan ayaa loo sameeyaa waxaa rajeynayaa cashirkan inuu idin anfacay hadduu cashirkan wax badan kaa anfacay oo wax ku taray times taawo amase waxaan ka wadaa like taawo siina sheergaya asxaabtaada u sii sheergaday subscribe ha hilmaamin iyo inaad taabatid gambaleelka si uu kuu soo gaaro cashiradeena markasta waa mahadsantihiin